in aan suurtagal ahayn inaan la fulin karin sharci doorasho qof iyo cod ah kadib waxay soo jeediyeen in doorasho dadban la aado ayagaa ku soo heshiiyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada haddana baarlamanka wuxuu ansixiyey doorashadii dadbaneed 17 September waa la socotaan heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiiskii loogu talagalay in doorasho lagu galo su'aasha la isweydiinayo waxay tahay haddii doorashadii 2021 oo aan dhahnay doorasho toosan hala galo lama fulin kara la yidhi tii hadda lagu heshiiyeyna suurtagal weli noqon weysay in lagu heshiiyo xalka waxaa laga rabaa baarlamanka federaalka waxaan rabnaa markaa dhowr qodob inaan caddayno waxaa laga hadlaa waxaa waaye doorasho ayaa laga hadlaya iyo goormaa la qaban karaa halkan looma fadhiyo muddo kororsi wax la yidhaahdo waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su'aalahaasna weydiinaya ajandaha maanta waxaa waaye qodobka 9aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu u ogolaanayaa golaha shacabka mar walba inuu la hadli karo codsigaas ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaad halkan ku fadhidaan kulankan ma aha kulan wadajira ma aha waa kulan uu leeyahay golaha shacabka ee baarlamanka federaalka dhowr jeer halkaasaan ka sheegnay waxaan dhahnay golaha shacabka diyaar uma aha khilaafka inuu ka mid noqdo wuxuu diyaar u yahay xalka mar walba inuu qayb ka ahaado waxaan rabnaa marka saaxiibadaanada sharafta badan senatoriska aqalka sare ka socda kulankan waa kulan golaha shacabka keliya uu leeyahay waay warbixinna waxaa laga dhagaysan doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan codsanaynaa madaxdiinana ay naga codsatay qoraalana la soo diray waa aragteen oo social media email walba lagu soo qoray kulankan inayna qayb ka noqonayn aqalka sare saaxiibadaanada sharafta leh marka waxaan ka codsanaynaa saas inay u fahmaan si aan khilaaf iyo buuq uusan u dhicinna waxaan ka codsanaynaa in kulankan loo daayo keliya golaha shacabka aad iyo aad u mahadsantihiin